السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan soo gaarnay farbarashadeeni quraanka kariimka xuruuf lihijaa meeshaas kaaga muuqato sida kaaga muuqato waa xuruufta alifka lagu magacaabo xuruuf lihijaa saad la socoto waxay ka kooban tahay 28 xaraf haddiina hamzada iyo aan kala qaadnana iyo alifkana waa 29 marka xuruufta alifka ayaan leenahay xuruufta alifkan baranayna talo maxay tahay حروفta alifka meeshan ku yaalo waa taqaanaa alifka waa alifka dhameystiran baa meeshan ku yaala isaga horena usoo aqrinay waan ka boodi insha allah ujeedada u socdaa waxay tahay inaan ku fahansiiyo alifyada ku jira quraanka iyo waxay ka koobeen alifkan hamza kor ka saaran hadii kor ka fuudhiso waxaa lagu magacaabaa alif alhamza marka hamza ayaa kor ka saaran kordhigay noqonaysaa haddii hoos fuushana waxaa lagu magacaabaa hamza kasray noqonaysaa waa hoos dhigay noqonaysaa marka waa inaad iska ilaaliso alif alhamza la dhahaa labadan waa isku mid midna waa kordhigay midna waa hoos dhigay meesha hamzada fuushay noqonaysaa mararka qaar alif hamza haddaan u gudbin waxaa jira hamza mararka qaar yaa ay kor ka fuulaysaa marna hoosay ka fuulaysaa markay kor ka fuushana waa way kor dhigan tahay marka hoos ka fuudhishan sida shay-an oo kale laba kordhig markii kor la saaro yawma idin alifkaas hoos lasii dhiga quraanka meelo badan aad ka fiirin kartaa suurka ka fiiri summa la tus'aluna yawma idin halkaas way ku jirtaa la tus'aluna koray ka fuushay marka siinkii waxay fuushay iyo taado marka meelahaas ina ilaalisaa taas alif lamza loo magacaabo alifkan hadda soo galay waxaa la dhahaa alif reeban ama alif saakin oo alif caariya alifka quraanka hadda ku aragto waxa masaara mashaqlana uu reeban yahay bishardi laakiin wixii ka horeeya waa inuu kor dhigan yahay markaas soo galay sida jaa jiinka waa kor dhigan yahay alifka waa reeban yahay sida ma adraaka ma miimka waa kor dhigan yahay alifka waa reeban yahay wa idaa haddaa tiraahdo idaa zulzilat alifka waa hoos dhigan yahay hamzada alif alhamza hore idaa ذلك waa kor dhigan yahay alifka dambe waa reebay marka alifkaas reebana lagu magacaabaa badan alifkaas saddexaad marka waxaa lagu magacaabaa afraad alif almad waa maddaa saaran waa la dheeran jaa wuxuu saaran yahay qul yaa ayuha alkaafiruun yaa ayuha meeshaasuu saaran yahay waad arkaysa yaa ayuha aladiina oo kale waa saaran yahay marka xaraf almad ayaa lagu magacaabaa shaygaasna waa madan yahay xarakaad gooniya la alifka kalena wareeri alif alwasli la dhahaa ama alif sila loo yaqaanaa waa alifka noocaasa saad yar ayaa kor ka saaran alif sila ayaa lagu magacaabaa marka kasoo qaad suurata iqra oo kale wuu saaran yahay laakiin waa la hoos dhigay iqra bismi rabbika alladii khalaq biismi bacdaas korkeeda alifka saarana waa asaga marka akrinayso biismi ma dhihisay bismi rabbika marka alifkaas wuxuu suubiya haddii isaga laga bilaabana waa la akriyaa haddii xaraf uu ka horeeya wow iyo fa'na waa la qariyaa kasoo qaad bismi rabbika bismi waa biismi kasoo qaad qur-aanka markaad akrinayso bismi allahi waay soo ma alifkaas waa alifu silo alifka meeshan saara waa alifkaas ninkaan odaga marka bismi illaahi aa lagu dhahay millaahi miimkaa lagu dhiftay alifkii markaas bismi illaahi aa u akrinaysa laakiin bismi allahi ma u akrin kartid arraxmaani arraxiimi qalad waay kayfiyada qur-aanka loo akriyna maahin laakiin qaacidada loo qoraayo sidaasa marka qoraysa bismi allahi arraxmaani arraxiim qoraysa laakiin axkaamtaasina xafido marka alifkan wuxuu suubiyaa laba erayo isku xiraa inta badanba marka alif alwasli ayaa lagu magacaabaa ama alif sila ama hamzat alwasl alif alwasli wala hamzat alwasli waxaa kaloo jira alifka daafanta alif ya kamid ah oo isaga inta u badan qur-aanka meesha u dambeysuu jira halkaas si fiican iskaga fiiri kasoo qaad sabixisma o dhan markaa sabixisma rabbika alaclaa laamkaas waa kordhigan waa ya-dan ya-dan ayaa meesha saaran marka halkaas iska fiirinaysa الذي خلق فسوى
والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى يا marka kulli wuu saaran yahay isagana shuruuddiisa waxay tahay inta badanba aakhirul kelima ayuu galaa inta badanba iyadoo aanu hadda naxwi iyo waxba la aadin jumlada meesha u dambeysa ayuu marka badan ka galaa sabbix isma rabbika alaclaa qor haddii loo acleeya qoraysa alifkaas qorka saar fasawaa fasawey iyo camal waayo laakiin ma ahin waa alif sababta wuu waa ka hormaray aclaa laamka waa kordhiganya alif reebo ya qaacidadii alif bilmadna waxaan kusoo qaadanay inuu fatxa ka horeysa ya-da inay ya bilmaduudna waxay ahayd inay faslo ka horeysa oo ya-dii reeban tahay wowgan shuruuddiisa waxay ahayd dama ka horeysa marka alifyadan waa alifka qur-aanka ku jira inaad ku baraarugtaa la rabaa suurad qur-aan aad soo qaada alxamdu kale aad ka raadisa biribinaas aad ka raadisa idaa jaa aad ka raadisa markaas waxaad ogaanaysaa bitadbiiqeeda insha allah macalimiintan inay isku dayaan inay ardayda sidaas ugu tadbiiqiyaan alifkaasaan soo sheegnay waa alifyada barashada alifyada qur-aanka ku jira casharkan intaan ku gaarayno cashar lamid ah halkaasoo ku joojinayna biidni illah